casharka koowaad ee kitaabka xusnul muslim fadliga uu leeyahay xuska allah. ilaahay wuxuu yidhi فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ixusa aan idin xusee aan ajir idin siiye iguna mahadiya hana igu gaaloobina. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. kuwa xaqa rumeeyow xusa ilaahay xusid fara badan. alle wuxuu yidhi sidoo kale والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ragga in badan ilaahay xusa iyo haweenka in badan xusa wuxuu eebbe u diyaariyey dembi dhaaf iyo ajir weyn. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ku xus rabbiga naftaada adigoo khushuuc baryo iyo cabsi muujinaya, kuna jirto qaylo la'aan aroor iyo galabba. hana noqon kuwa halmaama xuska ilaahay. qofka rabbigii xusa iyo kan aan xusini waxay la mid yihiin qof nool iyo qof dhintay. yacni farqiga u dhexeeya labadaas oo kale ayaa u dhexeeya qofka allah xusa iyo kan aan xusin. sidoo kale suubanaha wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, ma idiin sheegaa camaladiina kan ugu qayr badan uguna udgoon badan boqorkiina yacni alla agtiisana ugu sarayn badan darajooyinkiin, idinkana qayr badan inaad bixisaan ama aad sadaqaysataan dahab iyo lacag, kana sii qayr badan inaad la kulantaan cadowgiina kadibna aad garaacdaan luqumahooda iyaguna ay garaacaan luqumihiina. waxay dhaheen haa, inoo sheeg. wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, waa xusida ilaahay kor ahaaye, yacni inaad la baxdaan dahab iyo doolar sadaqa ahaan, iyo in aad la kulantaan gaalada ay idin laayaan idinkuna aad laysaan jihaad ahaan. waxaa intaba ka ajar badan xuska ilaahay aad mar walba xusaysaan. wuxuu yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam, wuxuu leeyahay ilaahay kor ahaaye, waxaan ag ahay waxa uu iga filayo addoonkayga, aniguna isagaan la jiraa hadduu i xuso. hadduu igu xuso naftiisa dhexdeeda waxaan ku xusayaa naftayda dhexdeeda. hadduu igu xuso qolo dhexdoodana waxaan ku dhex xusi qolo ka qayr badan kuwaas. hadduu ii soo dhowaado taako waxaan u dhowaanayaa dhudhun. hadduu ii soo dhowaado dhudhunna waxaan u dhowaanayaa baac. hadduu ii yimaado isagoo socda waxaanu imaanayaa anigoo ruculaynaya. yacni xadiidkan wuxuu ka hadlayaa niyadda ama malaha in la wanaajiyo. tusaale, haddaad alle ka malaysato khayr adigoona samaynaya khayrkaasi wuxuu ku siinayaa khayrkii aad ka malaysatay, balse haddii aad ka malaysato sharna wuxuu ku siinayaa wixii aad ka malaysatay oo shar ah. waxaa laga wariyey cabdullaahi ibnu busra allaha ka raali noqdee inuu yidhi, in nin yidhi, rasuul allow, waxaa igu badatay sharciyada islaamka ee ii sheeg shay aan ku dhego. wuxuu yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam, yuusan ka suulin carabkaaga inuu ku qoyanaado xuska allah, yacni inaad mar walba iyo meel walbaba ilaahay ku xusto. wuxuu yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam, qofkii akhriya xaraf ka mid a kitaabka qur'aanka wuxuu leeyahay xasano, xasanadaasina waa 10 la mida. wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, ma dhahayo alif laamiin waa xaraf keliya, laakiin alif waa xaraf, laamna waa xaraf, miimna waa xaraf. xaraf walba aad akhrisana wuxuu alle kugu siinayaa 10 xasano ama ajar. sidaa darteed alifka, laamka iyo miimkaba waxaad ku helaysaa 30 xasano ama ajar. waxaa laga wariyey cuqba binu caamir allaha ka raali noqday inuu yidhi, rasuulka ayaa noo soo baxay annagoo joogna sufa, markaasuu yidhi, kiinee jecel inuu u kalaho maalin kasta xagga budxaan ama caqiiq, kadibna kala yimaado 2 halaad oo shilshilis si dembi la'aan iyo qaraabogoosnimo aan ahayn. waxaan dhahnay, rasuul allow, waan jecelnahay arrintaas. wuxuu yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam, haddaba muu u kalaho midkiin masaajidka oo uu barto ama uu akhristo 2 aayadood oo kitaabka ilaahay ka mid ah, waxay uga qayr badan yihiin 2 halaad. 3 aayadoodna waxay ka qayr badan yihiin 3 halaad. 4na waxay uga qayr badan yihiin 4 halaad iyo tirooyinkooda oo geel ah. yacni inta tiro ee geel ah aad soo heshaan dhigooda oo aayado ah inaad akhrisataan ama aad barataan ayaa ka qayr badan. wuxuu yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam, qofkii fadhiista fadhi uusan ku dhex xusin ilaahay wuxuu ku noqonayaa fadhigaasi qoomamo. qofkii seexdana meel
uusan ku dhex xusin ilaahay wuxuu ku noqonayaa meeshaasi qoomamo ama shalayto. wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasallam, ma fadhiisan qolo fadhi aysan ku dhex xusin ilaahay kuna saliyin nabigooda sala allahu calayhi wasallam. haddii ay yeeleen sidaasi wuxuu ku noqon fadhigaasi shalayto ama qoomamo. ilaahayna hadduu doono wuu cadaabi, hadduu doonana wuu dhaafayaa. wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasallam, ma jiraan qolo ka kacaysa fadhi iyagoon ilaahay xusin. hadday jiraanna waxay ka kaceen wax la mid ah dameer bakhtigiis, waxaana u sugnaatay qoomamo. la soco cashirka labaad insha allah.